kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa Wacaal Media kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Boorame faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxayo xaalad cusub oo ka soo korodhay arintii magaalada Boorame beesha Ciise oo ku dhawaaqday dagaal cusub oo ay ku difaacanayso magaalada Seylac iyo guud ahaanba gobolka Awdal haddaba waxaad la wadaagi doonaa xaaladda cusub dagaalka oo isku rogi karo dagaal qabiil gadabursi iyo sidoo kale beesha Ciise oo hadda ay ka dhax tafatay arintan yaa gadaal ka riixayo magiilaha Djibouti mise xukuumadda Somaliland waxaan idin la wadaagi doonaa kadib markii uu soo ilaaday dagaalkii xukuumadda iyo shacabka magaalada Boorame xaaladda magaalada oo markaan u muuqato inay noqon doonto dagaal u dhaxeeyo beelaha Ciise iyo gadabursi ee gobolka Awdal wadadega wararkii ugu dambeeyay idin soo gudbin doona dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo sidoo kale jabhadaha hubeysan ee halkaas laga soo warinayo qodobadaas iyo kuwa kale ayaynu ku soo gudbin doonaa qaybtan si gaar ah waxaan u dul istaagi doonaa xaaladda guud ee magaalada Boorame waxba soo kordhay shacabkii oo kadib go'aamadii dawladda ka soo baxay markaan Somaliland u muujiyay taageero iyo dhinaca kale markaan beesha gadabursi hadii la xaliyay dhinaca kale beesha Ciise oo iyaduna arintan walaa xor la ka bilowday kuna dhawaaqday dagaal salaadiinteeda dhaqanka oo hadlay ayaanu ku bilaabeena soo dhawaada saaxiibayaal hadii aad saaxiibna ku cusub ugu soo bir muuqaalka like sar aragtida wax dhisay qaybta hoose faalada dadweynaha ugu reeb sida aad la wada socotaan labadii maalmood ee la soo dhaafay magaalada Boorame ee gobolka Awdal waxa ka taagneed xiisad culus oo lagu diidan yahay bandhiga buuga xeer Ciise xiisadan waxay u dhaxaysay dadka shacabka ah oo ka careysan qorshaha bandhiga buugan oo xukuumadda iclaamisay in 14 bisha aynu ku guda jirnay December la qabanayo marka arintu waxay gaartay heer dagaal gacan ka hadal ah waxa la soo warinayaa in xaaladda markaasi ay sababtay dagaalkaasi dhimasho dhaawac ciidamada Somaliland ayaa lagu eedeeyay in dadkii ugu badnaa halkaas ay ku laayeen qasaaraha dhimashada waxa uu kor u dhaafay 14 ruux dhaawacuna xisaab ma leh burbur hantiyadeed oo baaxad ayaa ka dhashay diidmada shacabka banaanbaxyadoodu waxay noqdeen kuwa rabshado wata xukuumadda Somaliland ayaa si lama filaan arintan u xalisay haddaba maxay tahay qaabka xukuumadda arintan u xalisay xukuumaddu waxay sameysay in gabi ahaanba meesha ay ka saarto bandhiga buuga xeer Ciise madaxweynaha Somaliland oo warbaahinta ka soo muuqday ayaa ku dhawaaqay arintan sidoo kale wasiirka warfaafinta Somaliland ayaa arintan awgeed isku casilay marka xaaladda markay halkaas marayso shacabku waxay ku qanceen go'aamada dawladda dhinaca kale hadii la qanciyay beesha gadabursi waxa gadood muujisay beesha Ciise iyadoo oo sheegtay inay difaaca doonto dhulkeeda salaadiinta dhaqanka oo warbaahinta la hadlay ayaa ku dhawaaqay inay isugu yeeranayaan cid walba oo beeshaasi ka tirsan waxaana ay ku dhawaaqeen dagaal marka xaaladda hadda barkamale ay joogtaa waxaana loolanka u noqon doonaa yaa iska la gobolka Awdal beelaha gadabursi iyo Ciise ayaana dagaal ku dhaxdooda ah warku qaar ayaa sheegaya in Djibouti ay ku lug leedahay xiisadan xukuumadda Cirana ay ku lug leedahay marka xaaladda halkaas ay maraysaa odayaasha ama salaadiinta dhaqanka markaas beesha Ciise oo iyagu hadlay ayaanu qaybtan idin kula wadaageenaa si aad markaas u ogaataan halka xaal uu marayo banaanbaxyadii rabshadaha watay dhimashadii dhaawacii ciidamadii dawladda lagu eedeynayay iyo arrimahaas oo idin markii dhinac iska dhigo arintan cusub ayaa soo kortay Ciise waa lagu soo duulay hadalku gaaban yahay hadal dambe doontidna ma jiro nin walo meesha aad joogtid ka soo dhaqaaq sharaftaada difaaco ciidaada difaaco ciidaada difaaco egayso iisoo gurma kuma lihi waxba iisoo gurminin waxba iisoo gurminin oo yaqaana Ciise dhulkiisa oo yaqaana waxaan leenahay beesha Ciise meeshay doontaba ha joogto war lagu soo duulay dhulkaaga difaaco waa meeshii isaga lagu caleema saaray maanta waxa la leeyahay xafladii xeerkaaga ha ku qabanin la leeyahay ee lagu dhafoortaabanayo maanta waa xinin yataabad saalo taariikhda baad halku aabaya ku aasan yahay iyo halka maanta joogna arag Ciise dhul lagama qaato ninkii in dhulka in ka qaadanayo moodayo lagama qaato Ciise dhul bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu lillah salatu wassalamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam amma ba'du alhamdulillah rabbil alamin ilaahay baan mahadle ilaahay baan ku mahadinaynaa marka hore marka labaad waxaan sheegaynaa shirkeegan wuxuu daaran yahay anagoo guursidii ogaaska gandihii ogaaska iyo ogaaskiiba dhan beeshii Ciise waxgaradkaygu u dhan yahay uu joogo wuxuu daaran yahay shirkeega kan maanta waxa la ku dilay kuma digin
ninkuu kuu digay kuma dilin saddex bal ayaa shirkayga la hor joogsaday xalfadeedii la hor joogsaday oo la baajiyey mar labaad haddeed u dulqaadan mayno waxaan leenahay beesha ciise meeshay doontaba ha joogto war waa laguu soo duulay dhulkaagii difaaco waxgaradkaagii iyo aqoonyahankaagii iyo aqlilahaagaba miyi magaalo waa laguu soo duulay wax xalfadood u fadhidaaya ma jiro xalfaddii shiraacyadii waa ugu dambeeya waa la laabay hadda waa laga joogsa xalfadaad sugtay ma jirto waxaad u diyaargalowdaan dhulkaagii inaad difaacatid inaad u dhibatid inaad u halgantid inaad u jirintootid inaad u jicidid ayaa loo baahan yahay meeshaad doontaba joog ciisow miyiya magaalaba dhulkaagii difaaco waxaad u fadhidaa ma laha dee maba lihid adigoo lagugu leeya dhulkaagii saddex balle lagugu baajiyey waxaad hadday sugtaa ma laha waa ninkii fulaahaye iska hadh kii gabadh u doonanada iska hadh ninkii dhimasho doonayey ee dadkiisa u dhibanayay ee dadkiisa difaacay soo dhaqaaqa meeshaa doontaba joog wix hal xagteed lisa ha soo dhaqaaqo baaqeenu taasuu daran yahay waxaan hadda la hadhay noo hadhay ma jiro alaabteenni waa saa go-aankeennu waa saa ciddiina sugaysay ee beesha ciise ahayday go-aankii waa naga sidaa qaata ku carafo qasha ku soo guura ku soo dhaqaaqa waa bilaahi tawfiiq xafladdii aad sugaysay saddexdaa waqti la mariyey hadda kadib xafladaad sugtaa tolkay uma jiro waa inaad dhulkaagii xoraysatid ninku hadduu dhulkiisa u dhinto buu helaa dhulkaagii tolkayow difaaco waa taqaanaa inta ay tahay kuu sheeg mayno hebli waa dhulkaaga waa dhulkaad degta aad degaysa taallaa taa sidaa baan leenahay waxa kaloo jirta waxa uu ciise wala leeyahay waxa weeyaan waa ogaaska iyo xeerka iyo dhulka iyo geedanka meeshii uu doonayo baryada intaaba way ka dhaxaysaa ciddii odhanaysa meel kalea lagaga yimid iyo meel kale yaa lagaga yimid ciddii odhanaysa waa cid dhegala saylac waxa lagu caleema saaray 19 ogaas oo ogaas mustafe uu u dambeeyaa lagu caleema saaray waa meeshii isaga lagu caleema saaray maanta waxa la leeyahay xafladii xeerkaaga ha ku qabanin la leeyahay ee lagu dhafoortaabanayo maanta waa xinin yataabad waxa weeyin ma kala lihin intaaba ciise waa ummad meeshii la dooyay waa loo dhiman tolkay ciise labadaada dhigood fur odayaashii ogaaskii ma aamusiye haddaad odhan lahayd waan kuu sheegnaa annagu meeshaad doontaba joog dabadiiyo gudo waxaan ku leenahay dhulkaagii difaaco markaad xoraysato ayaad xafladaada qabsan wax xafladii ahayba ma jirto isaaqna uu ku raacay oday hadduu ahaa gebi uu ku wada raacay Soomaaliya maqal isaaq iyo reerka wata way noo heshiiyeen Soomaaliya maqal way noo heshiiyeen waa heshiis suldaanadii oo dhan iyo ogaasyadii iyo wax la caaqilay lahaayeen iyo ku hadlo yiri ciise xafladda hadaayo iyo saaka ku hadlay madaxweynuhu ku hadlay ma yeelayno xaflad wax la yiraahdo ma jirto halka bay ku hadhay halkii uu isaaq dhigo yay taala xaflad dambi ma jirto ciise waxaan leenahay ciise taariikhdiisa jad ciise dhul laga qaatay lama arag waligii lama arag ciise dhul laga qaatay saalay taariikhda baad halku aabaya ku aasan yahay iyo halka maanta joogna arag ciise dhul lagama qaato ninkii in dhulka ka qaadanayo moodayo lagama qaato ciise dhul lagama qaato waxaan leenahay ciisow dhulkaaga difaaco xor u noqo xoraysa dhulkaaga kolkaabaad xalfadaha qabsani kolkaad xorayso eed adu yeelato lugahayaalkay ka noqotay iyo halkay saylax ka noqotay halkana xariirada ay ka noqotay inta adiga la ciisow adaale ilaahay baa ku siiyey waalidadaadii baa ku aasan adiga iskale waa xundurtaadii ciisow xoraysaan ku leenay xorayso nibaha ku duulin nibaha doonanin waxa weeyaan ciisow dhulkaagii xorayso u madax banaanow dhulad leedahay ha noqoto meesha dooni ciisow joog beesha isaaqna waxaan leh walaalaan ahaan jirnay maanta walaalama nihine war ammaan geli ilaahay ka baqo ammaan geli ammaan isii dhulad leedahay ma doonayo waxba kaama doonayo adiga dawladdan ku moodayna waad noqon weyday dawlad baan ku mooday waxaan kugu noqonay waa walaalkaayo dawladaan lahaa waxaan kugu laalaamayay een kolba haye ku lahaa
waa dawlad baan lahaa waana walaalka iyaan lahaa amarkaagan qaadanayay saddexdaa bal oo dhan baan haye ku idhi iyaa ku idhi iyo ammaan geli dhulkaygaa waan doonan iyo ammaan geli ninka kale igu soo doonanay ha igu soo doon ninna ha iga celinin ninba iga celi ka odhan maayo ammaanaan kaa helo walaalkayow ammaanaan kaa helo soomaaliyayna sidaa ogow baan leenahay soomaaliyayd idhegayso iisoo gurma kuma lihi waxba ha iisoo gurminin u yaqaanaa ciiso dhulkiisa u yaqaanaa sidoo dhulkiisa u difaacda u yaqaanaa wuxuu yaqaanaba dhul baa jirta dhul uu difaacani ooyna maayo laakiin waxaan leen ogow baan ku leen gardarrada waa la ogaaday ogow waa xaflad wax halkaa gaadheed arkaysiin halkaa gaadh labadaa reer baa noo heshiisay isaaqowna ammaan aan kaa helo meelaad leedahay taaban maayo adaa iskale dhulkaaga hargeysa adaa iskale mayaan kula leh waddanka intaa leeg baad leedahay adaa iskale kii magaalada kula yaalla ha kula yaallo ee ammaangiisii wax inaga dhexeeya oo dhulkoo bannaanee kale ma jiro kii aad ii dawaraysana aniga ha ii dawarin miisaanka haddaad saartay reerkii ciise iyo reerkaa kale dharqanayso ee walaalkaa ah miisaanka haddaad ciisaa fudud haddaad tidhi mid fududaan doono wala arki doonaa ammaanse aan kaa helo walaalkayow ammaan aan kaa helo baaqayagu taabuu daaran yahay ciisowna dhegayso halkaa joogta soo dhaqaaq ninkii gaashaanqaad ninka ee ciisa ee gaashaanqaada halkuu doonaha jooge soo diyaargalow dhulkaagana xorayso baaqayadu waa intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan maanta aan ka hadlaynaa aan iskugu imanay shirkan jiraad u qabanayn waa xaaladii soo jiitamay 3 biloodba soo jiitamay xalfadii ka dhacay saylac inaan ugu dambayn tolkeen beesha ciise meel walba joogaba inaan u sheegno xaaladii ugu dambeeyay iyo go'aanka ugu dambeeyay xaaladda ugu dambeeyay kullee waa la wada ogyahay wax xalfad oo ciise aad sugtid horta ma jiro xalfadii aan u diyaar garownay 3 bilood sidii la sheegayay kolba bal la qabanayay 2 balna Soomaaliland ay qabatay balkii saddexaadna dawladda Djibouti ayna dhaxaadisay aan Djibouti tagnay ayna dhaxaadiyeen balkii ugu dambeeyay imika lagu dhawaaqay jimcihii saakana wax kale ka soo baxay marka ciisow go'aanka waxaan ku siinaynaa horta xalfadaad u diyaar garowday ma jiro taa horta waa sidaa waxaan ka hadlaynay dhulkaaga waa lagu soo duulay dhulkii aad lahayd ciisow waa lagu soo duulay dhulku imika ma dhalan waa hore ayuu dhulku iska jiray taariikhdana Saylac district iyo Boorama district ayaa la kala oran jiray dhulka 60kiina xuduudu iska kala lahaa dhulku nin walbana sumad buu lahaa sumadiisu waa la garanaya nin walba sumad uu lahaa waa la garan xadkii Ingiriisku noo kala dhigay reer walba beel walba waagii hore beelaa la kala lahaa bulaxaar xagga ka noqotay ilaa xariirada reerkii loo dhigay dhagaxa ee beesha ciise ahayd Saylac district baana loo oranay dhulkii sidaa ahaa ee taariikhda lahaa ee abayaasha nooga haray in maanta la yiraahdo xalfad kuba qabanaysiin dawaad arkaysaa ciise marka baaqan jeedinayna meel walba oo ciise joogtid dhulkaaga difaaco waa lagu soo duulay gardaraa la isku raacay xaqdaraa la isku raacay waxaan ciise baaq u jeedinaynaa hadal dambe oo kuwa hare ma jiro hadal dambe aad doon xadfad kale doonti ma jiro dhulkaaga waa lagu soo duulay difaaco meel walba oo joogtina ka soo dhaqaaq dawladdii Somaliland dawladda waxa lagu yaqaanaa inay dadka ballan la galaan inay dadka xaq u kala sheegaan inay ballanta fuliyaan baan ku naqeynaa tii waxaan ahayn yaa maanta meesha ka soo baxay wax tii ahayn oo kolba bal qabata yaa meesha ka soo baxay de kullee sida ku socoto beelo wala yaala dadku waa dad horta waa beelo dadku nin walba reer buu ka soo jeedaa reer walbana dhul buu leeyahay Ilaahay ku abuuray reer walba dhulkii uu lahaa iyaa lagu heshiiyay dawladnimo iyo dhusul lagu heshiiyo la isku darsaday cid kale dhulkeega qaadan kartina ma jiro dhul cusub oo imika la qaybsanayo oo 2025 la qaybsanayo horta ma jiro ciise waa lagu soo duulay hadalku gaaban yahay
hadal dambe oo doontidna ma jiro nin walo meesha aad joogtid ka soo dhaqaaq sharaftaada difaaco cididaada difaaco ciidaada difaaco